waa hagaag daawadayaal waxaan ku sugannahay mid ka mid ah guryaha ku yaalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo caawa ku soo dumay gudaha degmada Xamarweyne. Gurigan ayaa ka koobnaa 3 dabaq sidaad u jeedaan waxaa imika la samato bixinaya dadkii ku hoos jiray guriga qoysas badanna ay deganaayeen. waxaa imika ila taagan gudoomiyihii degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir gudoomiyihii hore degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Cumar Shariif Jaag oo garanaya ehelada qaar ka mid ah dadkii halkan deganaa oo caawa dhismahan ku hoos jira. Cumar Shariif Jaag ku soo dhaw telefishinka Universal bal waxaad inooga sheekaysaa inta ogaalkaaga ah shakhsiyaadka aad garanaysid ee halkan ku hoos jira. wallaahi orto meesha hadda wax la dareemi karaa ma jiro dadkii gudaha ku jiraan waa aragteen 3 dabaq oo isku soo wada dumay laakiin haddeertaan waxaa kaloo ku jiro nabadoonkii imaamkii beelaha Banaadiriga Cusmaan oo hadda la rabo in laga soo saaro meesha gurigana waa gurigii xildhibaanada waaye biibaqle fi gurigooda marka waa muujisa rabbaani waa wax hadda dhacay aan u jeedno ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda meesha ku jirto ilaahay ka soo samata bixi gudoomiye guriga caadi buu u dumay maadaama guriyihii qadiimiga ahaa ee ku yaalla degmada Xamarweyne uu ka mid ahaa mise cilad dhanka korontada ayaa jirtay sababtu u dumay. wallaahi ilaa hadda wax ma sheegi karno wuxuu u dumay ilaa iyo arrintaa waa u jeedaan idinkaaba kor taaganbo arrintaas waxaa la ogaan doonaa markii haddeertaan dadka laga soo bixiy annaga hadda argagaxaan waa argagaxsannahaybo aadaan u argagaxsannahay sababtoo shacab badanaa gudaha noogaga jiro shacabkaas intaan ka soo samata bixinaynaan sugaynaa oo keliya. kaasi wuxuu ahaa Cumar Shariif Jaag oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Xamarweyne. waxaa ila taagan mid ka mid ah dadka goobjooga ahaa oo markii halkan wax ay dhacayeen ku sugnaa goobta guriga uu ku dumayay. soo dhawow magacaaga iyo waxaad caawa aragtay. bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Sidi Cali Mawlid Nagey ku sugan maaragtay goobta ka dhacay masiibadan rabbaaniga waxaan marayay markaas meesha dabaqa ka soo dumay maaragtay gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Xamarweyne. waxaa durbadii arkay dabaqii 5 biyaan ka koobnaa dad badan ay ku dhex jireen xataa hadalkooda aan maqlayay markaa meesha marayay dhabada isla markiina waxaan arkay meeshii oo wada duntay kadibna gadaal markaan u arkayna waxaan arkay meeshii oo cidla ah aad iyo aadaan ugu murugoonay kadibna waxaan imaaday gudoomiyihii Xamarweyne iyo taliyihii ku-xigeenka guud ayaa imaaday marka haddana waxaa laga soo saaray dhaawacyadii iyo maaragtay dadka ku geeriyooday wili la maartay. waa hagaag daawadayaal waxaa la soo samata bixinayaa